bismillaahi raxmaani raxiim kulanti wanaagsan daawadayaal meel kastoo ay joogtaan halkan waa barteena youtube-ka ee xogta tube waxaan halkan idinkugu soo gudbin doonaa xogaha ama macluumaadka iyo dhacdooyinka lagu hadalhayo baraha bulshada saacadihii lasoo dhaafay intaan gudagelin muuqaalkeena fadlan waxaan kaa codsanayaa inaad subscribe saarto kanaalkeena kadibna aad furato gambaleelka si muuqaal kasta oo aan halkan soo dhigno aad u hesho gabadhan aad u jeedaan saacadii la soo dhaafay ayay qabsatay baraha bulshada waxaana la hadalhayay muuqaal markaasi iyada laga soo duubay gabadhan waa Soomaali waxayna ku sugan tahay dalka Turkiga waxaana la soo bandhigay iyadoo ciyaaraysa waliba iyadoo meelo kamid ah jirkeeda la arkayo waxa jira nin u dhashay dalka Turkiga oo gabdhaha Soomaalida iyo kuwa kale oo ajaanib ah ka duuba muuqaalo anshaxuma ah ama muuqaalo sidan oo kala ah oo gabdhaha meelo kamid ah jirkooda la arkayo waxaana ninkan uu yahay nin ganacsada ah oo waxyaabahaasi ku shaqeysta haddaba intaan gabadhan u gudagelin oo saacadii la soo dhaafay baraha bulshada qabsatay bal aan eegno ninkan maxaan ka naqaanaa jalaatoolaha caanka ah ee magaciisa lagu magacaabo Silgin Dundumarsi oo ah ninka ay maanta hadalhayntiisu baraha bulshada Soomaalida ku faaftay Silgin waa 40 jir ka soo jeeda bariga Turkiga magaciisa rasmiga ah waa Mehmet waa heesaa ciyaaryahan ama dheeliyahan iyo ganacsade wuxuuna xarun lagu iibiyo jalaato ku leeyahay magaalada dalxiiska caanka ku ah ee Antalya dalxiisayaasha ayaa aad uga hela in ay ka iibsadaan sidoo kalena daawadaan qoobka ciyaarkiisa Silgin ayaa caan ku ah heestiisa Kalbimsin oo ka dhigan waxa tahay qalbigayga taas oo ah mid ay ku ciyaaraan qof walba oo ka iibsada jalaatada sida ay horay u tabisay warbaahinta Turkiga wuxuu toddobaad walba xaruntan ka sameeyaa lacag ka badan 100,000 oo dollar bariisa bulshada waxa ku xiran malaayiin dad ah oo kala jooga dunida wuxuuna ku wargeliyaa qof walba oo doorta inuu ku ciyaaro heestiisa inuu ku baahinayo barihiisa bulshada xaruntiisa waxaa booqda dadka caanka ah oo ay ciyaaryahanada aktarada iyo fanaaniintu ka mid yihiin ma jirto wax gaar u ah gabdhaha Soomaalida qof walba oo halkan raba inuu ka iibsado jalaato ayaa ciyaara waa hadii uu qofka raali ka yahay isagana ma jiro qof uu ku qasbi karo inuu ciyaaro markaad halkaas fiiriso gabdhaheena Soomaalida iyaga ayaa raali ka ah in laga duubo muuqaal anshaxuma ah ama muuqaal la arkayo meelo kamid ah jirkooda iyagoo qaawan inay heestiisa isku korduubaan waa kuwa ay raali ka yihiin muuqaalkii ugu dambeeyay ee ninkan uu soo duubo gabadhan Soomaalida ayay ahayd baraha bulshada ayay saacadii la soo dhaafay qabsatay ayadoo jirkeeda meelo badan uu ka muuqdo isla markaana ciyaaraysa heesta uu isagu qaaday inta uusan muuqaalka bilaabin isaga ama dadka ama gabdhaha uusan muuqaalka ka duubin ayuu ku wargeliyaa gabar walba in raali ay ka tahay in la duubo wuxuuna ku dhahaa raali ma ka tahay in muuqaal aan ka duubo ama muuqaalka aan ka duubo aan ku faafiyo baraha bulshada sida Facebook, Instagram, YouTube, Snapchat iyo baraha kale ee bulshada ay ku wadaagto iyo TikTok xitaa gabdhuhu waxay leeyihiin si gaar ah gabadhan muuqaalkeedii muuqdo raali waan ka nahay taasi oo markaasi isagu qalad uusan ku lahayn mar hadii qofkii uu isagu rabo raali ka yahay qofkan kale wax qalad ah kuma laha gabadhan saacadii la soo dhaafay aad ayaa loo dhaleeceynayay baraha bulshada ay qabsatay waxaana lagu dhaleeceynayay ficilka ay sameysay oo ah in muuqaal laga duubo iyadoo jirkeedu meelo badan uu ka muuqdo isla markaana ciyaaraysa ninkan sidaasi ayuu ku shaqeystaa oo uu uga sameeyaa 100,000 oo dollarka Mareykanka ah xaruntiisana waxay ku taalaa bariga dalka Turkiga gaar ahaan magaalada dalxiiska caanka ku ah ee Antalya haddaba daawade bal aragtidaada adigu nala wadaag sidaad u aragto iyo waxa aad ka aaminsan tahay iyo wax ninkan looga hortagi karo iyo gabdhaheena Soomaalida halkaasi dalxiiska u taga ee muuqaalada noocan oo kala laga soo duubo bal sidee u aragtaa aragtidaada halkan nagula wadaag mar kale waxaan ka codsanayaa inaad subscribe saarto kanaalkeena kadibna aad furato gambaleelka si muuqaalada aan halkan soo dhigno aad u noqoto qofka ugu horeeya
ee daawada. Soo dhawaada mahadsanidin.